عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo dhaweynayaa anigoo Axmed ah ayaan ku soo dhaweynayaa qalbi furan iyo qacmo furan soo dhawaada channelkayga Axmed iyo Ayaan. waxaad nooga barateen barnaamijyo ama qosqosol ama challenge laakiin maanta barnaamijku wuu ka duwan yahay. horta marka koowaad waxaan leeyahay Ramadaan Kariim meel kastoo joogtaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. ilaahay bisha barakeysan khayrkeeda hayna siiyo. intaa ka soo maanta waxaan inoo hayaa waxa weeyaan shirkadeeni Essence Europa shirkadda la yiraahdo. shirkaddan waxay iibsaa waxyaabo badan laakiin anigu waxaan ka isticmaalaa ama aan ka iibiyaa waa cadarada rag iyo dumarba way leeyihiin. waa kuwan cadaradu markuu furan yahayna waa sidaas. kulley kamarada inaad aad u aragtaan baa rajeynaya. cadaradu waa kuwan. اللهم صل على محمد. بحلقة كلنا وحويان وأوليا فيرا شامبو iyo condition kiisi weeyaan oo timaha waxay ka duwan yihiin bahashan toxobta la yiraahdo. way ka ilaalinaysaa haddaad leedahayna way kaa kaxaynaysaa. يعني timahaagana waxa laga yaabaa inay si fiican kugu bixiso. taas waa taas. cadarka muxuu u dhow yahay noocana waxa weeyaan waa nooca dumarka galkan buu ku jiraa. nooc kasta uu ka leeyahay. يعني inta cadar ee ka jirta يعني marka cadarkan oo kale waxa weeyaan kan oo kale hadda waxa weeyaan waa 1 milyan weeyeen cadarkani. xaggan dambe ayuu lambar ku leeyahay. lambarkaas waxa lagu garanayaa waa cadarkani nooc uu ka samaysan yahay ayaa lagu garanayaa. waxa jira markaasi marka dukaanka aad dhex gasho iyo marka dibadda ka joogto qiimo kala duwan yihiin. يعني ha ku faafaayo halka waxaan ka wadaa marka dibadda ka joogto iyo marka gudaha ku jirto waxay ku kala duwan yihiin. marka register garayso ama dukaankii ka tirsan tahay qiimaha uu ku tusayo marka aanaad register garaysnayn iyo qiimaha markaad register garaysantaa ku tusayo waa laba different kala duwan yihiin. laba qiimo kala duwan buu ku tusayaa. markaad register garayso waxaad og tagaysaa qiimo intii hore ka jaban aad markii hore arkaysay. inta aanaad register garayna waxaad arkaysaa qiimo sareeya. taas waxay ku tusinaysaa inaad haddii naftaada u baahan tahay inaad iibsan karto cadar jaban. haddii aad rabtid inaad ka ganacsatidna aad ka ganacsan kartid. haddaba sidee baad uga ganacsanaysaa? aan tusaale ahaan hadda saan ugu ganacsadaan kuu sheegaya. waxaan ugu ganacsadaa hadda kartoonkan cadaraad ku jira. inta cadari ku jirtaaba waa dalab. tusaale ahaan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel bay la soo hadlaa ama shirkadaydan ka tirsan oo dadka cadarada ka iibsada aan rabin inay register gareeyaan ee raba inay wixii cadarkii isticmaalaan. dadkaas waxay sameeyaan anay la soo xiriiraan waan u dalbaa qofku meesha doonaha jooga adresskiisa aan ugu diraa. waxa intaasi dheer يعني markii ugu horeysay shirkadda ku cusbaa maan kala aqoonin يعني cadarka idgoon iyo cadarkan idgoonin iyo waxa maan kala aqoon. laakiin se markii dambe waxaan helay symbol bah lagu tijaabiyo cadarka ama ku garan karta cadarka idgoon aan markaa iibsan karo. marka inta cadar waa dalab dad baa leh ka bacdi marka maanta aan dalab wixii ku iibiyo wayga sax talgalay inuu isticmaalo ama uu iibsado. laakiin se haddii aad iska keeno macluul ma noqonayso. laakiin se haddii aad wixii aad order ku bixiso يعني iyadoo lagaa dalbaday aad dalabto waad ka faa'iideysaa. waxaa kaloo i tusayaa يعني bahasha symbolka soo qaadayso.
bahash sambalka waa kan sambalska waa kon cadarada halkan ku jira cadar kasta uu leeyahay cadar kasta uu leeyahay tusaale ahaan cadarkan ku ursiinayaa cadarkan oo kale markaan ku ursiiyo horta intaa caddaanka waa dumar inta buluugina waa rag laalkan marka tusaale ahaan cadarkan oo kale aad ka hesho ama kan oo kale ka hesho kan oo kale ka hesho aad ursato waxaad ka helaysaa cadarkii udgoonaa ana kaasaan u baani kahaa iyo dalab lambar buu markaas leeyahay lambarkan uu leeyahay wuxuu ku jiraa meesha dukaanka dhexdiisa lambarkii baan baarayaa cadar hebel lambarkiisu saa yahay aan soo saarayaa cadar kastana magaciisa waan aqaanaa waxaan ku aqaanaa waxaan haystaa lista dhan oo magacaantii ku qoran yihiin iyo lambarkiisii cadarka magacii lambarkiisii imika aniga cadarkan kan hadda aan isticmaalo kan waxa weeyaan waa armani weeye khasab maaha inuu qoraalada armaniga ku jiro qoraalada shirkadda way samayn kartaa waxa gudaha ku jira laakiinse qoraalada way kala duwanaanayaan taas muhiimaddu waxa weeye waxa gudaha ku jira ee ma aha qoraalada ma aha muhiimaddu waa waxa gudaha ku jira halkan oo kale waad arkaysaan waa listada yani qofka hebel baa dalbaday cadarkaa hebel cadarkaa isu leeyahay tusaale ahaan bahalkan isaga wato waxaas waa taas intaasaan idinla wadaagayay insha allah linkiga xagga hoose aan idin dhigi doonaa iyo lambarka haddii aad register u baahan tahay ama aad u baahan tahay inaad ka ganacsato ama aad u baahan tahay inaad wax ka iibsato intabaad ka iibsan kartaa linkiga waxaan kuu dhigayaa xagga hoose insha allah markaan hadda youtube-ka aan soo geliyo videoga ayaan channelkayga youtube-ka ayaan idin soo gelin doonaa channelka youtube-ka markaan idin soo geliyo linkiga xagga hoose ayaan idin dhigayaa iyo sponsor ID-ga waxa weeye markaad garanayso wax kugu xidhayaa waxa la yidhaha sponsor ID oo ah qofka aad ka socotid tusaale ahaan anigoo kale 10kayga lambar ayaan hoosta ku dhigayaa 10ka lambar markaad meesha ku qortid password ku gooniya iyo waxaaga oo dhan iyo emailkaaga ayuu kugu soo diraya laakiinse waxa ugu muhiimsan waxa weeye inaad emailkaaga saxdid email sax inaad meesha gashato si uu kugu soo diro sponsor ID adigoo aad leedahay password adigoo aad leedahay iyo waxaaga aad kala socotid waa kaas google-ka ayaana ku qori doontaa application uu leeyahay application laftiisa marka google ku qortay saa ku tusi doona waad la soo tegi doontaa waa kaasi taasaan isku ognahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta insha allah nagu cusubna waxaan u sheegayaa inay channelkayga soo booqdaan intii hore nagu soo jirtayna waxaan leeyahay asxaabtiina la sii wadaaga ta ugu muhiimsana loo socdana waa subscribe channelkayna soo booqataan السلام عليكم ورحمة الله